إلهي وين واحد هنجا سمر سيو بدل كذا غير غبانا الله نصيو أنت كدي بني ما جاي بس نورا ليرا وحن odaygooda ahay dadka meeshan daadsan jira haddayna arintaasu tilaabto mudantahay ka qaadin hadda waxa naga weydiinina dadkaas dadka ay ka leedeen u dul qaadan maya gardarro inta lagu laayo in dhiigooda loogu marmarsiyoodo ayada xoogaa loo yahay loona adeegayo qabiilo shacab ah oo ayaga ay aana qabiil ka dhaxaysay in inta yiraahdaan hadallo dila ay aqbalaan ma aqbalayno xogogaalan kana arinta wax badan baan ka ognahay الله أكبر الله أكبر الله أكبر وحنا عدسرنا دولتنا الرنتاس انت قعدت كبحن والله بالله تالله قداي كب الله بين الشباب آدين هدينا نبدأ ودان جوجين وإذا كان لو هذيك سنة يدك إن الشعب كان يقول لنا ما أقبلنا أمر الدول غادرين ربع تنكروا عمس من ما هيكر وعن ليش جينا وعن تكلم عن الدولة الصومال oy keeni weyso dadka uu ka mid yahay sheegu oo laayay oo intuu u diidayo gacan qabiil adeegsanaya oo dhiigdoona oo raadinaya dhiigayaga oo waafa hogaaminayo oo qabiila hadday kaari waayaan gacantuuna waa fasaxantahay boqorkii niibana anaa dagaalka intuu hogaaminaya waana iska dhici doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annaga nooga barateen wararka iyo warbixinada inaan idiin soo gudbino had iyo jeer maanta miiska waxaa noo saaran jenaraal sheegow oo u dhashay beesha jeesha jarar weyne ee ugu dambeysayba daharaad aad u ballaaran ka dhigtay gobolada qaarkood daharaadkaas oo ay kaga hadlayeen xariga loo geystay jenaraal sheegow markii ciidamada dowladda federaalka ay tageen gurigiisa ayuu wuxuu sameeyey iska caabin qaadanaysa 12 saacadood kadib ugu dambeyntii waxaa gacanta lagu dhigay jenaraal sheegow dowladda ayaana gacanta ku haysa inkastoo beeshiisa ay sameeyeen dambiyo hanti qaran ay burburiyeen iyo mid shacaba hase ahaatee hadda jenaraal sheegow warar kale oo soo baxay ayaa waxaa loo haystaa taariikhdu markay ahayd 2017 dad beeraley ah waxa suuq uu geystay beerahooda uu ku dhex dilay odayaasha dhaqanka ee dadkaas la laayay ehelkoodii ah ayaa u sheegay warbaahinta iyagoo kaga hadlaya dhibaatada iyo dacadiga geystay dadkaas beeraleyda iyagoo codsanaya in maxkamadda loo soo saaro ilaahay weyna waaxid hanaga samar siiyo bedelkooda غير غبانا الله نصيو انت كدب aniga magaca nuura la yiraa waxaan odaygooda ahay dadka meeshan daadsan oo Soomaaliyeed ma aqbali karno maalin walba sida odayaalka iga horeeya uga hadleen sabab la'aan inta dadka guryahooda loogu tago lagu laayo haddana lagu andacoodo shabaab baan layna mareykankii waxay ku soo jawaabeen annagu shacab ma aan layna shabaab baan layna shabaab ma aynaan layn shacab ilmo iyo caruur iyo waayeelo iyo dad beeraley iyo beerahoodii tabcanayay oo aad xogogaan u ahaydeen oo shalay idinla joogay oo idin sheegay inay beeraley yihiin meesha degan yihiin oo aad xogtooda kaamil ahaydeen inaad saakanta ku kala hadaan laydaan uma arkayno inaad aqoon darro iyo ogaal darro uma layn xog baad ku laydeen runahaan arrin aad ku tala gasheen bay ahayd arrin marmarsiyo loo raadinay ahayd dadka war la aydeen maahan mana aqbali doono mana aqbalayno iyadoo la og yahay inay shacab yihiin oo beeraley yihiin oo meesha joogaan oo shalad idinla joogeen oo ay idin sheegeen inay beeraley meesha degan yihiin oo ay shabaabka raadsanaysaan aysan ka mid ahayn inaad tiraahdaan shabaab baan layne shacab ma aanaan layn naguma qanci kartaan kumana qancayno kumana qaadanayno dowladdeena waxaan leenahay dhibaatadu maanta meesha ay taagan tahay haddaydnaan ka hortegin ku ekaanna intaas dowladana waxaan u sheegaynaa dhibaatada maanta madaxan leenahay waddanku dowladu leeyahay ra'iisul wasaare jira madaxweyne jira golo wasiirada jira baarlamaan baa jira haddaydnaan arintaasu tilaabto mudantahay ka qaadin hadda waxa naga weydiinina dadkaas dadka ay ka leedeen u dul qaadan maya gardarro inta lagu laayo in dhiigooda loogu marmarsiyoodo ayada xoogaa loo yahay loona adeegayo qabiilo shacab ah oo ayaga ay aana qabiil ka dhaxaysay in inta yiraahdaan hadallo dila ay aqbalaan ma aqbalayno xogogaalan kana arinta wax badan baan ka ognahay الله أكبر الله أكبر الله أكبر waxaan codsanaynaa dowladdeenu arrintaas intay gacanta ka bixin waxa ka qabato ha ka hortagto
maanta waxbay ka qaban kartaa shabaab iyo duulanaad aadeen wallaahi bilaahi tallaahi gudahay ka bilaabaynaysa shabaab aadayn haddaynan midda aad wadaan joojin oo ciidanka loo adeegsanayo dadkeenni shacabka lagu laynayo ma aqbalayno umana dulqaadanayno dowladdeenna waxaan ka codsanaynaa waa ku celcelinayaa arrintaas si degdeg ay soo farageliyaan wasalaamu calaykum waraxmatullah 20 kun oo amisom ma hayn karo waxaan idin sheegaynaa waan iska dhicinaynaa dowladda Soomaaliya oo keeni weyso dadku uu ka mid yahay sheegow oo laayay oo inta ugu diiday gacan qabiil adeegsanaya oo dhiigdoona oo raadinaya dhiigayaga oo waafa hogaaminayo oo qabiila hadday kaari waayaan gacantuuna waa fasaxanta boqorkii niibana ana dagaalka intuu hogaaminaya waan iska dhici doonaa wassalaamu calaykum